sida muuqaalka hordhiciisa ku soo aragteen war degdeg ah ma dhihi kari waa hees degdeg oo karbaash ah fanaanadii caanka ahayd bulshada Soomaaliyeed magacii miisaanka ku lahayd lagu magacaabay Farxiye Kabayare oo karbaashtay madaxweynihii dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waliba karbaash kaliya ma ahana intii miisaaratay ee 3 gobol ka dhigtay heestan waxa isleeyahay ereyada waxa qoray Xasan Cali Khayre والله بالله هيستان ereyada ninka qoray waa nin cadow ku ah madaxweynaha dalka Soomaaliya heestu waa hees karbaash ah Xasan Sheekh ay boqolkiiba boqol ka hadlaysaa dhulalka boobay masaajidada dumiyay iyo dadkii u barakiciyay iyo wax walba oo dalkan ka geystay inta buug iyo qalin lagu qoray waliba qof cadow ku ah heestan la xameeyay wuuna muusigna uu saaray fanaanadana lacag ku qaata u maleena kulli waa loo soo dhiibay inkastoo ayadana la dhahay muursado waxay macnaha isku heeb yihiin Xasan Cali Khayre laakiin anaga meeshan marabna inaan qabiil ku falanqeeno muhiimadda waxay tahay fanaanadan oo karbaashtay madaxweynihii dalka Soomaaliya heesta waa ku fasixi doona ereyadana waa ila dhigeysi doontaa ay laxanka hayga degdegin intaanan horta muuqaalkan bilaabin haddaan nagu cusubtahay waa nagu soo biiri kartaa muuqaalkana like inoo saar si uu u gaaro madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud bal idinkaga dhex baxo heesta karbaashka ee soo qaaday fanaanada caanka ah Farxiye Kabayare ee ku karbaashayso madaxweynihii dalka kulli ani kulli dabcan madaxweyne in la karbaasho aniga horta kuma qanacsani raalina kamii qof mas'uul ah in la caayo laakiin haddii si u fiiriyay heestan dabcan waxay ka hadlaysaa gabadha waa wax sax ah inkastoo ayada laakiin fuusta qabiil iyo balaayo lagu soo riixay ee Xasan Cali Khayre dabada ku wadato laakiin waa isla arki doona horta heesta asla qiimeynayna kadib isku soo laabanayna tan iyo laba alla darinta nooyimi marna lagu malhelo oo malhadino dalkii way lugooyeen tan iyo laba alla darinta